بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. waxaynu ku jirnay darskeena siirada ahaa, waxaanaynu maraynay cadaadiskii muslimiinta lagu hayay iyo nimankii mushrikiinta ahaa oo bilaabay doodo badan oo ay kala soo horjeedeen saxaabada, oo ay isku dayeen inay tashkiik ama shaki geliyaan dadku wuxuu aaminay ama caqiidadii islaamiga uu nebigu ula yimi calayhi salaatu wasalaam. waxyaabahaasi muranka badani ka dhacay maalan waxaa ka mid ahaa baynu soo tilmaamnay dhowr shay. waxaa kaloo ka mid ahaa baynu leenahay suuratu ruum maalan siduu xadiidkii tirmidi sheegayo markay qeybta hore soo degtay ee suuratu ruum alif laam miim gulibat iruumu fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuuna fii bidci siniin. suuraddaas markay soo degtay qeybteedaasi hore oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo ruum in la jebin doono oo fii adna alard lagu jebin doono kadib intay guulaysteen muddo dhowr sannadood gudahooda. waxay noqotay runtii saadaalin aada u cajiiba. qur-aankuna nubuu'aadkiisa waxaynu maalintii dhaweyd soo tilmaamnay nubuu'addii suuratu tabat yada abilahabin watab, aynu nidhi waa nabuu'a sheegaysa qur-aanku uu ku tilmaamayo inaanu abilahab weligii rumaynaynin ahlu naarna inuu noqonayo siduu alla u sheegayna way u dhacday, iyadoo gaalo kaloo badani joogtay oo iyagu qaar badan oo ka mid a ay soo islaameen. tanna waa wadcigii caalamka markaa ka jiray labadii dowladood ugu xooga roonroonaa, oo midna ay tahay dowladdii romanska la odhan jiray albizantiyiin, midna ay tahay dowladdii iraniyiinta ama bershiyanka la odhan jiray, oo labadii dowladood ee caalamkii markaa la yaqaanay u xoog badnaaya. colaad weynina ay ka dhexayn jirtay, oo labadan dowladood aad bay isu hayn jireen, colaad weynina way ka dhexaysay. ayaa waxaa la jebiyey romanskii dhulkaa urdun ay hadda ku taalla agagaarkeeda lagu jebiyey jab aada u xun. waxay dadka wax indha-indheeyaa markaasi u arkayeen inaanu jabkaa dabadeed soo kacaynin romanisku, waxaana aada u xoog bato aada u muuqday dowladdii bershiya ama iraniyiintii, waxaana la islahaa dib usoo laabmi mayso taa romanisku. saadaalina aada u fog bay ahayd in la yidhaahdo wadcigay markaa ku jireen iyo noloshay joogeen iyo sidii loo jebiyey iyo dhibtii ku dhacday iyo waxaa in la yidhahdo mar dambe ay soo noqon doontaa, ay wax qabsan doontaa. qur-aan baa cirka ka soo degaya, ilaahay leeya way soo noqonayaan, iyagaana wax qabsanaya. qurayshi markaa waa ku istihzaado, waa ku qososhay. muslimiintan kule romaniskaa laga takhallusay baa mar labaad imanaya, aad bay ugu qosqosleen. dabeetna waxaa la yidhahdaa muranku wuxuu dhex maray abibakar iyo koox mushrikiinta ka mid ah. markii dambe waxay ku heshiiyeen inay rihaan dhigtaan, inay sharatamaan, oo ciddii sharadkaa laga helaa xoolaa in laga helo. fi shariica hadda waktigan aynu joogno sharatankaasi ma bannaana, laakiin intii aanay taxriimku soo degin ayuu ahaa. dabeetana wuu la sharatamay in la jebin doono nimankaasi romanska ah sida qur-aanku sheegaya inay sax tahay iyo inaan waxba ka jirin. rihaankaasi sidii qur-aanku sheegaya ayay u dhacday, oo waxaa la jebiyey nimankii romanska ahaa, mar dambe ayay wax jebiyeen. waxaad moodaa inay kaloo la isku hayay fikrad odhanaysa kristanka oo markaasi uun dee dad lagu tirinaya inay alla rumaysan yihiina, iyo nimankan kale bershiya oo iyagu qolada sanamka caabuda ah oo asnaamta ka tirsan, oo aad moodo mushrikiintu xagga asnaamta inayna siyaasiyan taageerayeen oo u arkayeen xoog badnida asnaamtu ay xoog badataa inay dani ugu jirto, muslimiintuna inay dhinaca kale taageerayeen. iyo iyadoo jaziira alcarabiya gaar ahaan magaalada maka la yidhaahdo aynu nidhi waxaa ka jiray maka dhul baac mushtar bay ahayd, markaa siyaasadda duwaliga ee dabaddu in badan ayay u fiirfiirsanayeen, waayo maadaama tijaaradoodu nabadgelyada ay ku salaysnayd. waxaa halkana la jebiyey subxaana wa tacaala markaasi nimankii bershiya la odhan jiray, wa yowmaidin yafraxu lmu'miniintii baa dhacday. cadaadiskii muslimiinta lagu hayayna wuu sii tiro batay. waxaa bilaabmay wakti uu nebigu u ogolaado saxaabadu inay hijrooto, maka inay iskaga tagaan. wuxuu u
ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inay u hijroodaan dhulkii xabashada. hijrada xabashida loo hijrooday 2 goor ayay dhacday, mar hore iyo mar labaad say culamadu isku waafaqsan yihiin, ama bukhaariba siduu soo aroorinayaan rajaynaya. 2da goor ay dhacday marka hore waxaa la yidhahdaa waqti sii yaro horraysay bay ahayd. kutubi taariikh waxay sheegaan sanadkii 5aad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam soo bixiisa meelahaas buu ahaa. dadka hijroodayna inkastoo aynad sanad saxiixa ku haynin, laakiin sida waaqidi iyo ibnu isxaaq midba 2 riwaayadood oo iskhilaafsan ay sheegaan. ibnu isxaaq wuxuu ku sheegaa 10 raga iyo 4 dumara inay haayeen. waaqidina sidaa ka yaro gedisan buu ku sheegaa, waa 11 nin iyo 4 dumara inay haayeen, yani hal nin baa difference u dhexeeya. markaynu isku darno waa dhowr iyo 10 qof waxaa la tilmaamaya inay hijrada hore hijroodeen. weliba riwaayadaasi ahlu taariikhu ay wariyaan inaynu nidhi sanad xooggan uma hayno, waxay kusii sheegaan in ay doon ku kiraysteen nisfu dinaar ama dinaar badhkii, inay doon ku kiraysteen. dinaar badhkii waa ilaa 2 garaam oo dahaba meelahaas ay ugu raaceen dhulka xabashida. markaynu eegno riwaayadda saxiixa ee soo aroortay maalan, ama isnaad xasana qisada uu ku soo aroorinayo ibnu isxaaq laftiisa iyo ibnu hishaam siiradiisaba ku taalla, isnaadkaasi xasankaa waxa ay tilmaamaysaa umu salama oo sawiraysa, umu salama oo ummahaatulmu'miniinka ka mid ah oo sawiraysa hijradaasi siday u dhacday. umu salama waxay ka mid tahay dadkii koowaad ee hijrada koowaad ka qayb galay. waxay leedahay markii dhulku nagu cidhiidhiyoomay, markay nagu cidhiidhiyoontay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii la imtixaamay ee la fitmeeyey, ee uu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhib ku dhacaysa saxaabada ee diintooda loogu geysanayo daraaddeed, ee rasuulkuna uu awoodi kari waayey inuu wax ka celiyo, isagu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku jira bay tidhi fii manacati qawmi, ama tolkii ay wax ka celinayeen, oo isaga abi aalib baa markaa noolay oo aan adugu munaawashaad iyo cadaadisyada qaarkood aynu soo sheegnay mooyaane aan si toosa isaga dhib badan oo caynkanoo toos aanay jirin, ayuu wuxuu necbaystay bay leedahay saxaabadiisii waxa dhib gaadhaysay. wuxuu kaloo jeclaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam meeluu ku badbaadaan inuu u daydayo. dabeetana maalin ka mida buu intuu la hadlay buu wuxuu yidhi inna biardi alxabasha malikan laa yudlamu axadu cindah. dhulka xabashida waxaa ka mida buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa jooga boqor aan agtiisa dadka lagu dulminin, ee falxaquu bibilaadih, dhulkiisa kaa gaadha buu nebigu ku yidhi, xataa yajcala allahu lakum farjan wamakhraja mima antum fiih, xataa yajcala allahu lakum farajan wamakhrajan, ilaa iyo alle subxaana wa tacaala idinka yeelayo faraj, ama uu idiin furayo albaab iyo meela ka baxdaan, waxaan dhib idin haysa intaa meela ka baxdaana laydin yeelayo, sidan yeela. yani nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbaanu rabin in saxaabadiisa la tirtiro ama isti'saal lagu sameeyo. quwada quraysheed ama xoogga quraysheedna wuxuu isku dayay inay dadkan, gaar ahaan dadka ducafaaul qowmka, qasab in diinta lagaga celiyo. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wadcigii dunida ee agagaarkiisa duwalkii ka jiray markuu indhaindheeyey, wuxuu tilmaamay boqorkan xabashidu inuu uga cadaalad fiican yahay, oo romaniskan iyo bershiya iyo kuwa kan inuu ka cadaalad fiican yahay boqorkan xabashiyeed, oo markaa iyagu masiixiyad haystay ama nasraano ahaa, diintan nebi ciise uu nisbe sheeganayay. wuxuu idhi ninkaasi cadaalad baa agtiisa taalla. culammaduna waxay idhaahdaan dawlad islaama oo dulmi samaysa boqortooyadoodu way zuushaa, laakiin xataa hadday kaafirato cadaaladda leedahay, cadaaladdu waxay ka mid tahay waxyaabaha mulkiga ama boqortooyada ama maamulka dib u dhigay inay suusho, iyagoo aayad qur-aana u daliishanaya. idan alkufr maca alcadaala yaduun bay idhaahdaan. gaalnimo cadaaladi la socoto mulkigeedu wuu waaraa, laakiin islaamnimo dulmi uu la socdaa ma waarto. adoo muslima haddaad xagga dulmiga u xigto cadaaladda laga waayo, taadu waari mayse. waxa waarista kaaga xaq leh ta kaafirka ah, laakiin cadaalad ay la socoto. saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii bixi karayay markaa waxay baxeen arsaalan iyagoo ah, koox koox dhuundhuumanaysa iyagoo ah.
oo aan xataa wada soconin dabeetana halkaa xeebtaa la isugu yimi oo waxoogaaga kane ay iska heleen meeshaa markay isugu yimaadeenna doontaas bay raaceen iyagoo diintooda la cabsanaya oo xaggaasi qabtay dhibtu markay sii badatay xataa waxaa la yidhahdaa dadka loo fasaxay inay hijroodaan waxaa ka mid noqday markii dambe xataa abibakar baa isku dayay inuu ka hijroodo meeshanoo iskaga tago abibakar magaalada maku iskaga baxaa la yidhi dabeetana markuu marayay meel la yidhahda barkulkhimaad meel la yidhahda markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhahdo ibnu dakhina waa nin mushrik ah laakiin odaybu wuxuu yahay qabiilka la yidhaha alqaara qaari waa qabiil xilfi wadaaga laba ahaa bani zahra nimanka la odhan jiray qabiilkaasu sayidkiisa yahy abibakar oo soconayo safara buu arkay wuxuu ku yidhi ya abibakar ayna turiid xaggaad u socotaa abibakar wuxuu ku yidhi tolkaybaa i soo saaray markaa waxaan doonaya ilaahay dhulkiisa inaan meelun isaga kaco aan alle ku caabudo hortay bannaan baan u socdaa buu leeya abibakar faana uriidu an asixa fi lardi waacbuda rabbi inaan dhulka iska socdo uno meel aan ilaahay ku caabudon inoo tago ayaan rabaa ibnu dakhina ayaa markaa la hadlay waxaanu ku yidhi ina miluk laa yakruj walaa yukhraj fainaka taksib اlmacduum watasil الrixm wataxmil اlkal wataqri الdayf watuciina calى nawaa'ib اlxaq war adigoo kale buu yidhi abibakar uma baxo lamana saaro yani abibakar nin isaguna iska baxo oo luma ma aha nin tolkii saari karaanna ma aha waayo buu leeyahy adigu wanaag dhammaantii baad ka shaqaysaa weedhatani waa weedhii khadiijina ay ku lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo soo waxyooday uu baqayay waxaad moodaa inay tahay kelmad lagu isticmaalo dadka iska fiican weedhay carab isaga isticmaali jiroo kale inay tahay tii oo kaleu isna ku isticmaalo wuxuu leeyahay kaan waxba haysan waad wax siisaa qaraabada iyo raximka waad xadhiidhisaa kuwa culus ama dayn ama dhib ama mushkilad ku culus waad ka faydaa ka xambaartaa martida waad soortaa balaayinku dadka markay ku dhacaan waad ga gargaartaa nin waxaasoo wanaaga samaynaya waa fahal jazaau lixsaani ila lixsaani xaggee lagu saara ma aha buu leeyahy mid baxa anigaa dimadayda aad ku joogaysa ana magangelyo ku siiyey buu yidhi magangelyo anigoo odaygii reer hebela ayaa magangelyo ku siiyey ee noqo oo dhulkaagii ku noqo oo caabud rabbiga ninkani waa nin gaaleed caynkan leh dabeetana abibakar baa soo noqday isagoo ibnu dakhina ay wada socdaan ibnu dakhina markaa quraysh wuxuu u iclaamiyey ninkaasi waa magantayda carabtii hore qabaa'ilku waxay isticmaali jireen meesha wada degaa odayada qabiil ka tirsanay hadday cid magangelyo siiyaan waxay ahayd qolyaha kalena inay magangelo siiyaan haddii kale labada reer way isdilayaan waa nin reerka ka mid oo wax la yeelay oo kale sidaa ogeed wuxuu leeyahay anigaa magangelyo siiyey qurayshay dee sidaa ogaada waxaa la yidhi haddii aad magangelyo siisay annana waa ogolaanay magangelyadiisa ee ninkaasi gurigiisa haddaba wuxuu ku caabuday ha ku caabudo hana daayo halkiisa ha joogo laakiin yuu meelahaa kaga dhawaaqin waxaanu diidannahay muddo abibakar gurigiisii iskaga tukanayey oo meeshiisii iskaga cibaadaysanayey dabeetana gurigiisa finaagiisa banaankiisa yar hore daaradiisuu meel yar ka samaysto uu ku tukado halkaas baa abibakar intuu ku tukadaa buu qur-aanka kor u akriyaa markuu qur-aanka kor u akriyana xaafadaha iyo dadka meelaha maraya iyo dumarka iyo caruurta iyo waxaasaa kusoo ururoo la yaaba ninkan oo dhegaysta abibakar wuxuu kaloo ahaabaa la yidhaha rajulan bakaa nin oohin badan buu ahaabaa la yidhaha markuu ilaahay is hortaago subxaana wa tacaala hadduu salaad u kaco nin aada u ooya buu ahaabaa la yidhi oo aan ilintiisa haysan karin waaba tii caaisha lahayd markuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi abibakar far oo waxaad ku tidhahdaa dadka tuki waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa abibakar dee isma xijin karaye cid kale u dirbay lahay idan abibakar nin aada u oohin badan buu ahaa markuu ilaahay is hortaago markay go-aan iyo talo tahayna markuu go-aan qaatana nin aada go-aan adag buu ahaa markay talo tahay waa ninkii keligii lahaa riddadu markay dhacday keligii baan la dagaalamaya saxaab o dhan bay haddaa iska hadhaana xaggana ninka hal adag buu ahaa laakiin ilaahay agtiisa nin kastoo muslim oo adadayga hadduu ilaahay is hortaago ilaahay agtiisa waa wax yaroo sagiira walidaalika abibakar hadduu ilaahay is hortaago ishiisa ilinta kamuu xejin kari jirin abibakar marka halkaasuu iskaga tukadaa ooyaa qur-aankiisa akriyaa qurayshi waxay ka cabsatay ninkani inuu raadeeyo dadkan dhegaysanaya
iyo dadkan kusoo ururaya inuu raadeeyo waxaa lagu noqday ibnu daqino waxaa la yidhi dhegayso ibnu daqino laba kala dooro ninkan inaad magangelyadiisa ka baxaysid oo isu kaayadaynaysid iyo dumarka iyo carruurta inaanu naga waalinay inuu gurigiisi ku noqdo oo hadduu doonayo gurigiisa wuxuu doonaya haka sameeye inaanu dabad ula soo bixin qur-aan la akrinayo ibnu daqina ku noqday oo wuxuu yidhi abibakarow dee labadaa midun baan kaa doonaya waa magangelyo waan ku siiyey laakiin dee ilaahaaga hoostaada isaga caabudo gurigaaga joog haddii kale magangelyadaydii soo celi oo carab de waxaa qoraysh kale helaysaan yeela markaas abibakar wuxuu yidhi jawaarkaaga heshiiskaagiina waa kuu celiyey ilaahay baan jaar la ahaanaya magangelyada allaan ku joogayana kala kaxe adna sidii buu joogay abibakarna wuxuu iska aqbalay inuu xamilo wixii dhib gaadhayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu joogaabuu u tilmaamay hijradii hore saxaabadaa hore hijrootay ee dhowr iyo tobanka ahayd dhowr iyo tobankaasi intay sii maqnaayeen ayaa maalin maalmaha ka mida buu nebigu calayhi salaatu wasalaam masjid xaraamka gudihiisa ayuu suuratu najmi akhriyey wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa gawa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa callamahu shadiid lquwa aayaadkaasuu akhriyey muslimiintii meesha joogtay oo dhammi way sujuuday mushrikiintii meesha dhegaysanayeyna way isxejin kari waayeenoo way sujuudeen laba ninoo ragga kibirka badan ka mida mooyaane baa la yidhi dabeetana war baa faafay odhanaya qurayshiba way islaamtay maalintaasi markay ishayn kari waayeenee qur-aanka loo wada sujuuday markuu nebigu akhriyey ayaa war faafay odhanaya qurayshba odayadeedi iyo dadkeedii waaweynay maanta masaajidkii jooga o dham inta maxamed qur-aan akhriyey ayay dhammaantood wada sujuudeenoo dadba wada islaameen waxaa jira riwaayaad mursala xadiidka mursalkii waa xadiid uu taabici warinayo oo aan gaadhsiisnayn saxaabi mursal saciid ibnu jubayr iyo abubakr ibnu cabdiraxmaan iyo abulcaaliya saddex mursal oo saddexdaa nin gaadhaya baa jira oo isagu sheegaya in shaydaan nebiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisa uu ku soo tuuray wax oo qiradii ay ka mid ahayd iyagu say sheegaya nebigu akhriyey in uu ammaan yari ku jirtay oo sanamada la ammaanayo oo tilka alqaraaniiqi alculaa wa ina shafaacatuhuna la turja weedho sheegaya inay ammaan u tahay asnaamta shafaacadoodana in la rajaynayo inay carab ku soo dhacday riwaayado mursalaa jiro iyagu daciifu sanad ah oo sheegaya cibaaradatan in shaydaan yidhi oo ay mushrikiintuna maqleen muslimiintuna aanay maqal oo mushrikiintuna sanamadoodaa la ammaanay bay la sujuudayeen muslimiintuna yacni suuratu najmi qiradeeday la sujuudayeen laakiin qisadaasi culamo badan baa radiya inkastoo mursalkaasi ilaa xadkiisaasi uu sanadkiisaasi saxiixiyey laakiin culamo badan baa radiya oo waxaa la leeyahay aslulcaqiida bay kasoo horjeedaa walidalik baa maalan sheekh ilalbani waa kan qoray risaalada dhana la ydhahaa nasbi almajaaniiq linasbi qisati algharaniiq waa warafyad waan u xidhanayaa buu leeyahay qisadaasi sidii loo tuurtuuri lahaan wax ka jira aanay jirin waa qiso runtii aan sal caqiidada ku lahayn sida saxiihina waxay tahay uun suuradda tan inay isxejin kari waayeen niman carbeed oo luqada carbeed garanaya bay ahaayeen inay isxejin kari waayeen dhegaysigii suuradda tan sidaasi daraaddeed inay la sujuudeen calaa kulli xaal waxaa faafay war odhanaya quraysh baa islaamtay muslimiintii joogtay markaasi ardi alxabasha qayb ka mid a ama muslimiintii halkaa joogay war baa soo gaadhay odhanaya qurayshiba way islaamtay dabeetana waxay is idhahdeen dee dhulkiini iskaga noqdo mar hadday qurayshi islaamtay dhibtii way dhammaatay qoladii hore hijrootay dhowr iyo toban ka ahayd warkaas baa soo gaadhay dadkaasi markaa qayb ka mid ah ayaa ahlu taariikhu waxay yidhaahdaan ama ahlu siyarku baa soo noqday oo uu ka mid yahay cuhmaan ibnu madcuun ninkii la odhan jiray waxay soo socdaanba markay maka yimaadeen ama duleedadeeda markay yimaadeen ayay ogaadeen warkaasi inaanu sax ahayn quraysh odayadeedii iyo nimankii habaarka qabayna inaanay islaamin waxay noqotay markaasi inay dib u xidhxidhaan haddana halkiibay dib uga xidhxidheen laakiin marka kan waxa ku darsamay baa la yidhahdaa raacay dad kale oo iyana rabay meeshan dhibtii ku tiro badatay inay iska hijroodaan ayaa helay dad dee wada mareenoo meeshii soo maroo kala yaro garanaya wax dabeetana dad kaloo badan ayaa soo raacay ibnu isxaaq isagu wuxuu odhanayaa markan dambe dhowr iyo 80 nin bay ahaayeen
ibnu jariirna wuxuu leeyahy 82 nin iyo dhowr iyo 10 dumar ah ama 82 nin bay ahaayeen marka laga reebo buu leeyahy dumarka iyo carruurta dumarka oo qurana waxay ku sheegaan mar labaadkan dhowr iyo 10 inay ahaayeen calaa kulli xaal ahlu siyar dad badan bay sheegayaan markan dambe inay ahaayeen oo 80 ka kor u dhaafay dadkan dambe dib bay u hurjiroodeen waxaanay qabteen iyaguna ardi alxabasha culamaa'i taariikh siday warinayaan waxaa la yidhaahdaa waxay qurayshi markaa tidhi waa dhib badan tahay in meesha intay isugu tagaan ay ciidan kale iyo wax ka soo heli karaane nimankan warkoodu intaanu inagu faafin aan soo qabqabanno marka 2 nin oo quraysh waa yeelkeeda iyo raggooda cajabta badan le ka mid a hala diro boqorka xabashidana waa nagaashi boqorka xabashidana ha loo diro iyo bataariqadiisa yani wadaadadiisa kalarjiskiisa ha loo diro hadiyado tiro badan leh haynugu soo dirana hala soo qabqabto nimankaas iyagoo maxaabiista hala keena baa la yidhi waxaa la diray 2 nin oo mid yahay camar ibn alcaas saxaabiga ahaa marka kan gaal weeyaan intaanu islaamin weeyaan camar ibnu caas waa ninkay ku tilmaamaan daahiyat alcarab baa la odhan jiray nin aad u caqli badan oo maskax badan buu ahaa iyo cabdillaahi ibnu abi rabiica labadaasaa la isku daray waxaa la yidhi camarow nimankaa maanta meel kaga soo hoyo keen adigoo wada iyagoo maxaabiisa camar baa yimi iyo ninkan kale la socda oo hadiyada wada oo boqortooyada loo sido boqortooyada tan hadiyadda loo siday markaa waxay damceen inay la kulmaan boqorka waxaanay weydiisteen inuu soo celiyo nimanka kan najaashi wuxuu yidhi muslimiintiina bal halaygu yeedho muslimiintii oo uu ka mid yahay jacfar ibn abi aalib baa loo yeedhay wuxuu yidhi bal hadla ka warrama ninkani waxaan buu sheegaya idinku diintiina yacni cadaaladdu way ka muuqataa durbaba waayo cadaalad darro waxa ah in cid quri intay cid wax ka sheegto lagu akriyo dabeetana xukunka lagu qaado cadaaladda waxay halkanba ka muuqataa ninkani inuu nin suu nebigu u sheegay cadaalad garanaya yahay quraysh iyo odayadeedii iyo hadiyadaheedii iyo waxeedii intuu qaato oo warkii dhagaysto muu odhan inuun waa kuwa nimanka tolkooda iyagaa war badanee kooxdan yaryari waa irhaabiyina hala celiyuna muu odhan ee wuxuu damcay in bal iyana waxay hayaan la weydiiyo oo la waraysto labada dhanba inuu afti ka qaado markaas buu ku yidhi muslimiintii bal warrama idinkuna jacfar ibn abi aalib baa markaasi hadlay wuxuu yidhi boqorow waxaanu ahaan jirnay niman shirki iyo gaalnimo ku sugan sanamka caabuda baktiga cuna jaarka u daran wax kasta xalaashada badhba badhka iyaga uu dilo dhiigga iyaga aanu isbanaysanno wax naga xaaraanayna ma jirin wax noo xalaalina ma jirinee hor baanu isaga soconnay annagoo nooca u nool ayaa ilaahay noo soo diray nebi annaga naga tirsan oo aanu garanayno ballankiisa iyo runsheegiisa iyo ammaanadiisa yacni nimaanu naqaano aan ahayn nimaanu khiyaamo iyo been iyo cahdi xumo iyo waxaanu ku naqaanay aan ahayn baa naloo soo diray ninkaas wuxuu noogu yeedhay buu leeyahay ilaahay noo soo diray nebiga ahi inaanu ilaahay keligii caabudno oo aanaan cidna ku lamaanaynin inaanu qaraabada iyo raximka iyo tolka xidhiidhinno inaanu jaarka u fiicnaano inaanu ilaahay u soonno oo tukanno inaanu cibaado yacni wanaag oo dhan buuna faray wuxuu ku yidhi baa la yidhi markaasi hiraqal hal macaka shay-un mima jaa bih wixii uu idinla yimi wax ma ka haysaan yani waxyigan uu idin keenay qur-aanka inaad sheegayso bal haddaa wax ka haysaan sheega wuxuu kaloo u yeedhay la yidhi wadaadadoodii kristanka ayaa saaqifadoodii iyo wixii o dhan buu yidhi soo fadhiista jacfar wuxuu yidhi haa waan hayaa haluma fatlu calaya maa jaa bihi buu yidhi bal igu akri buu yidhi haddaba waxaanuu la yimi jacfar ibn abi aalib saxaabi runtii caqli badan buu ahaa wuxuu ku akriyey suurad ka warramaysa muctaqadka iyagu rumaysnaayeen suuratu kahf ama maryama suuratu maryam ayuu markaasi ku akriyay kaafha ya cayn saad suuraddaasuu ku akriyay najaashi markuu suuraddii dhegaystay ee uu fahmay ayuu ooye ilaa iyabaa la yidhahdaa gadhkiisi uu qoyay siduu u ooyayey wadaadadii kristankaee meesha fadhiyeyna waa ooyeen wuxuu najaashi markaa yidhi warkan aad sheegayso
iyo warkii muuse la yimi meel quray ka soo wada baxeen maya warkii muuse la yimi buu yidhi meel quray ka soo wada baxeen say riwaayaddaasi sheegayso markaasay quraysh nimankii quraysheeda waxay arkeen inay jabeen markii la yidhi warkan uu maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ah iyo warkii nebi muuse sheegayay oo kale waa waxyi un meel ka wada yimi ayay waxay damceen inay ninkan camar ibnu alcaas la yidhaha waa daahiyat alcarab waa nin caqli badan sidaa inu ku tago muu dooranin wuxuu isku dayay bal inuu dhan kale ka soo wareego oo bal jalse kale la sameeyo wuxuu yidhi nimanka kani ciise waxa ugu xun bay ka sheegaan wuxuu ogyahay in kristanku ciise ay u haystaan inuu yahay ina ilaah ama ilaah uu yahay dabeetana wuxuu damcay inuu baabkaa ka soo galo oo baabkii ahaa nimankani waa niman xunxun oo tolkooda bay ka baxeenoo waa kaasu socon waa idan waa inuu iminkana galaa inay kristanka wax ka sheegaan oo idinkaba qaar wax idinka sheegaya inay yihiin wuxuu yidhi nimanka kani war xun bay ka sheegaan ayuha almelik buu yidhi innahum yaquuluuna fii ciisa qawlan cadiima ciise waraad xun bay ka sheegaan najaasha haddana u yeedhay wuxuu ku yidhi maxaa jacfar buu yidhi maxaa ka tidhaahdaan ciise jacfar wuxuu yidhi waxaanu leenahay huwa cabdullahi warasuuluh وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول waxaan leenahay buu yidhi waa ilaahay addoonkiisii ciise waana ilaahay rasuulkiisii waa kelmaddii iyo ruuxdii ilaahay uu maryamo ku beeray saasaanu leenahay buu yidhi najaashi baa wuxuu yidhi maa cadaa ciisa bnu maryam mima qulta hada alcuud qori yar intuu qaaday buu yidhi qorigaa wax uu dheer yahay intaa adigu aada sheegtay ciise ma jiro dabeetana wuxuu amray boqorkii ammaan nabadgelye in la siiyo muslimiinta tan umu salama markaasa waxay leedahay faaqaamuu maca khayri jaarin fii khayri daarin ayay umu salama ku tilmaamaysaa xadiidkaasi iyo sanadkiisu xasan yahay waxaanu degnay bay leedahay jaar kii u khayr badnaa kulla la darso dariskii u fiicnaa iyo gurigii wanaagsanaa baanu saa ku degnay riwaayaat saxiixihii waxay sheegaysaa wadaadada tan marka laga warramayo ay la fadhiyee ooyey majlisa najaashi inuu qur-aanba soo degay adkaynayo mas'aladan qisadani siday u dhacdo ilaahay leeyahy walatajidanna aqrabahum mawaddata liladiina aamanuu aladiina qaluu ina nasaara dalika biana minhum qisiisiina waruhbaana waanahum laa yastakbiruun waida samicuu ma unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamc mima carafuu min alxaq yaquuluuna rabbana aamanaa faktubna maca ashaahidiin aayaddan qur-aan oo ilaahay leeyay dadka ugu dhow muslimiinta kalgacal waxa ay yihiin kuwii yidhi nasaaraanu nahay waayo waxaa ka mida qisiisiin wadaado iyo ruhbaan kuwa cibaado u go-ay waxaana yihiin baa ilahay yidhi kuwa aan iswaaweynaynin waxaad arkaysaa marka yani ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey iyagoo ishooda ilini ay ka dareerayso waxaad moodaa mubaadaradii ama isku dayii quraysheed ee ahaa inay muhaajiriinta soo celiyaan inay ku khasaareen oo marka kan ay socon weyday muslimiintiina inay heleen meel ay degaan waxyaabaha runtii u fiirsiga lena waxaa ka mid ah mowqifkay muhaajiriintu caqiidadooda iska taageen may qarinin ciise manay ka warwareegin ee wixii ay ka rumaysnaayeen xaqiiqada ahaabay ka sheegeen iyagoo khilaafsan kristanka agtooda wixii saa'idka ahaa warwareegin ee wixii ilaahay uu ku ogaayay diintooda ku yaalay bay sidooda u sheegeen mowqifkooda xaqiiqada inay caqiidadooda ka run sheegaanna ahna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku nabadgeliyey oo hijradoodaasi meel fiican ayay ugu dhacday oo waa degeen waxaase iska dhib badan kollayba dhul qurba ah ku noolaantii iyagoo nimankani dhul carbeed niman ku noolaa ay ahaayeen oo yimid dhul aan af carabi lagaga hadal ama aanay tol iyo qaraabo toona la wadaagin midab iyo diintoona aanay la wadaagin waayo waxay u yimaadeen najaashi ama dawladdii waa qolada tan xabashida iminka kuwan hadda haysta iyo haadhigu meesha ka yimaadeen weeyaan iyo kooxda tani waayo xabashidan cusub waa mililik iyo xayla salaasiya kuwan baa samaystay laakiin xabashidii hore waa qoladan iminka iyo haadhiga loo yaqaano
ayay boqortooyadan lahaan jiray boqorkoodan horena wuu islaamay dadka laakiin in badan waxa kaga qaldanta haddana boqorradii dambe ee uu nebigu waraaqa u dirdirayay mid dambe oo gaalabu kaasi ahaa laakiin kan hore islaamay waa asxama isagoo asxama waanu islaamay islaamnimaanu ku dhintay nebigana ku tukaday calayhi salaatu wasalaam nacyigiisii markii lasoo sheegay isagoo madiine jooga saxaabadii waxay dareemeen un dhib aada u tiro badan leh dhibtaasi suuradeeda sawirkeeda waxayna kaga filan markii muslimiinta kale ay hijroodeen ee madiine ay tageen ayaa qoladanina mar dambey ka yimaadeen xabashida dabeetana waa la dooday cumar iyo gabadh la odhan jiray asmaa bintu cumays ayaa murmay oo ka mid ah dumarkii u hijrooday maka kasoo u hijrooday xabashida ka soo noqday markaasay cumar iyo baa waxay ku yidhahdeen annagaa dee hijradii nebiga idinkaga soo horreyno idinka xaq leh yacni nebiga annagaa hortiin u nimi iyo dee muddo la joognay oo u gargaarayno la soconay gabadhaasoo gabadh caqli badnoodna ahayd ayaa waxay ku tidhi markaasi kalaa wallahi kuntum maca rasuuli ma jirta bay tihi cumaro waxaad sheegaysaane idinku waxaad la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo yuطcim jaa'icakum wayacdi jaahilakum idinku waxaad la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo kiina gaajaysanna quudinayey kiina aan wax garanayna waxu sheegaya o wacdinayey annagu see dhul fog oo qurba a baanu joognay oo aan rasuulna nala joogin cidinana wacdida iyo cid wax noo sheegtoo kalena aanay nala soconin bay tilmaamaysaa yacni gurbaday ka warramaysaa markaas ilaahay dartii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam diintii uu la yimi inaanu qaadana daraaddeed baananu xaggaa u joognay waxaanaanu ahayn bay leedahay kuwo kunnaa nu'daa wa nukhaaf kuwo la dhibo oo cabsanaya baanu ahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam warkoodii markuu dhegaystayna wuu u kala gar noqo wuxuu ku yidhi laysa biaxaqa bi minkum walahu waliasxaabihi hijratun waaxida walakum antum ahlu safiina hijrataan facaduma alfarxu bayna muhaajirati alxabasha xadiidka bukhaari ku yaalla waxa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam igama kiin awlaysana qolada tani cumar iyo kooxdiisu hal hijro bay leeyihin idinku laakiinse laba hijraa leedin buu leeyahy tii hore ay xagga u hijrooteen iyo tan dambe a madiine usoo hijrooteen ilaa ay aada ugu farxeen muslimiintii meeshaasi u hijrooday oo dhammi calaa kulli xaal culamaai taariikh waxay wariyaan war aan min xayu sanad xoog u asaxin ama sanadkiisu aanu fiicnayn ahlilmaqaasiguna ay sheegaan oo ah nin cubaydallaahi ibnu jaxash la odhan jiray oo ahaa ninkii qabay ummu xabiiba bintu abi sufyaan ee uu nebigu markii dambe guursaday calayhi salaatu wasalaam ee ummahaatulmu'miniin ka mid aha ninkaasi bay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay ciddii kiristaanowday intii uu joogay xabashida kadibna isagu xabashidu ku dhintay hadday qisadaasi saa u tahay qiso kalaa jirta oo nin cabdiraxmaan ibnu khaalid la yidhahda uu ku jiro saduuq lagu tilmaamayo sanadkeedu xasan yahay laakiin adigu marka laisku wada daro waa la daciifiya oo xadiitaan uma sugna bay leeyihin kaasina wuxuu sheegayaa inuu nebigaba wuxu sii dardaarmay laakiin calaa kulli xaal qisada hore haddaynu qaadano hadday sidaasi u jirto inuu ninkaasi ku kiristaamay waxaad arkaysaa ummad kasta oo dhulkii diinteeda iyo dadkeedu joogay ka tagta inay u bantaallo in la ugaadhsado oo ay fududay markaasi in cidi ka daadato hadday dhacdayba in saxaaba badh laga ugaadhsan karay waxaad garan kartaa un cid kasta oo dhul gaalee tagtay oo wasat ama bia ama environment ama deegaan tagtay gaalnimo unay joogto ama cristan lagu haya ama waxaan lagu haya inay fududdahay in cid badani ka daadato waana cabsida runtii maanta u taalla dadka soomaaliyeed ee in badan u kala qaxay caalamka gaaladu ay ka buuxdo oo weliba dhibta ugu badani ay tahay iyadoo dadka ugu badan ee joogaan ay dumar iyo carruur yihiin iyo dhalinyaro yani dadka ugu badanay jooga ay yihiin dad jilicsan ama dhibta labaadee jirta ay tahay dad aan diinta wax badan ka aqoonin ama mar labaad ay jirto dhul badan oo aan xataa dad diin u sheegayo waxba toona aanay la soconin ee gaalown intay afka uga galeen ay iskala degeen in carruurta iyo dadka meesha ku kobca iyo aragtida iyo waxa ka soo baxa hadhow uu kristan wada noqdaan ama diin laawayaal ay soo baxaan wax badan maaha inkastoo soomaalidu uu ka fakeraanuun qofku wuxuu cuno ma helaya kuwii xagga joogay se biil ma u soo diraya beledu doono isagu ha qaato markaasi ummu xabiiba uu ninkaasi ka dhintayna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u khidbadeeyey yani ayaa guursaday oo najaashi u soo diray war
in gabadha isaga loo guuriyo loo meheriyo nabigana loo meheriyo calayhi salaatu wasalaam najaashi baana meherka ka bixiyey baa la yidhaahdaa sida musnadu imaamu axmed ku sugan isnaad saxiixa waliba iyo sunan abi daawuud ba yani xadiid saxay sida uu tilmaamayo 4,000 ayaanu meher ugu bixiyey isagu najaasha meherkana ka bixiyey oo 400 oo meher bixiyey 4,000 oo meher ka bixiyey waxaanu ku soo daray markaasi iyadii iyo ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dib ugu soo daray saxaabiga la odhan jiray shuraxbiil ibnu xasna ayaa la soo raaciyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxba muu dirin hantidan tirada badan lana najaashi ayaa ka bixiyey waxaanu ahaan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam meherka uu dumarkiisa meheriyo haweenka meherku ka bixiyey dhammaantood waxay wada ahaayeen 400 oo dirham ayuu haweenkiisa kale oo dhan nabigu uu ku mehersaday laakiin haweeneyda tan 4,000 oo dirham ayaa laga bixiyey saxaabadii xaggan iyo nabiga u hijrootay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii u hijrootay baan ujeedaa dhulka xabashida ee muddada deganayd kadib waxay mar labaad u soo hijroodeen madiina markii muslimiintu ay madiina degtay intoodii badnayd waliba kooxahoodii ugu dambeeyay oo jacfar ibn abi aalib uu wadaana waxaaba yimaadeen khaybar markii la furtay ayay soo gaadheen laakiin intii ay meesha joogeen waxa kale ugu yimi koox kale oo saxaabo ah oo iyana soo hijrootay oo gaadhaya baa lagu tilmaamaa sida xadiidka bukhaari uu sheegayo 350 nin ka kooban oo wato saxaabigii la odhan jiray abu muusa al-ashcari oo yamana ashcariyiina kooxda tan waxaa la yidhaahdaa yaman bay ka yimaadeen dabeetana doontaasay soo raaceen waxay rabeen inay qabtaan nebiga calayhi salaatu wasalaam dee doonyihii shiraaca lahaabay hayde baddaa ku kacday dabeetana xeebtanuun xabashida ayay kusoo dul dhaceen markaas bay iska ugu yimaadeen saxaabadii kale halkan joogtay kadib baa laysa soo wada raacay hadhow ayay iyaguna yimaadeen madiine markii dambe iyana 2 goor bay markaa hijradoodii noqotay iyagoo markii hore u qastiyey inay madiine qabtaan laakiin doonta aan batay ay geysay xabashida kadib bay xaggaas ka soo hijroodeen taasi waa qisada ku saabsiisan xabashida iyo u hijroodkoodii haddaynu dib ugu noqonno markaasi maka muddadan ay saxaabadani xaggan ku soo maqnaayeen iyo wixii dhacay waxaynu nidhi saxaabadii 80 dadkaa ka badani waa ka hijroodeen oo xaggan bay soo qabteen dadka intii ku hadhay hijroon kari weyday ama bixi kari weydayna sidii baa loo dhibay nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wixii meesha joogay sidii bay diinta u faafinayeen ay diintu u socotay dadyawga soo islaamay markaa waktigaasi waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray cumar bn alkhaaab radia allahu canhu cumar bn alkhaaab iyo qaabku u islaamay waxa xadiid oo saxiixa oo ku soo arooray ma jiro laakiin ibnu isxaaq ayaa wuxuu tilmaamayaa islaamnimada cumar inay dhacday intii xabashada loo hijrooday kadib yani waliba hijradii koowaad dabadeed inay dhacday waaqidi oo ninkaynu dhowrka goor soo tilmaamnayna isna wuxuu leeyahay waxay dhacday sanadkii 6aad dilxija sanadkii 6aad ee bicada waliba wuxuu leeyahay isagoo cumarna markaa nin 26 jir ah riwaayada waaqidi aynu leeyahay xadiistiisa lama qaato waxa uu odhanayaa muslimiintu 40 ama 50 ama 56 meelahaas bay ahaayeen buu leeyahay duuduuba waxa ay arrinku ku kooban yahay cumar wuxuu ahaa nin xoog badan oo ragga wasniga ku leh magaca ku leh carab dhexdeeda ka mid ah waxaanu soo islaamay waqti muslimiinta aad loo dhibayay oo adaagu uu ku dhibadna cumarna markii hore islaamnimada halka uu ka joogay waxaad ka garan kartaa xadiidka saxiix ee maalan bukhaari ku yaala ee uu ka waramayo ninka la yidhahdo saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nawfal ibnu nafiil oo ah nimay ilmaadeeriyeen cumarna walaashii qabay faatima gabadhii la odhan jiray qabay faatima bint alkhitaab gabadha la yidhahdo qabay ayaa wuxuu leeyahay wallahi laqad ra'aytunii wa ina cumar
waxa ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi waxaan soo maro ay joogtay buu leeyahay la arkay iyadoo Umar uu islaamnimo daraadeed ugu xidho intii aanu islaamin yani intuu xidhay inuu ciqaabi jiray ninkana ilmaadeerkayina inaadeertiina qaba idan Umar wuxuu kamid ahaa un dadka dhiba maxay muslimiinta ayuu kamid ahaa dadka badna qisaska bad waxa isku xidhiidhiyaan marka ninkaasi la yiraahdo Saeed ibn Zayd iyo islaamnimada Umar oo qisa ayaa jirta iyana aan saxin oo sheegaysa inuu ku tala galay inuu nin dilo dabeetana isagoo maagmaagaya uu nin kale saxaabi yiri waraan Umar iska celina maanta oo yiri maad gurigiina islaamnimada ka celisid inta anaga nagu soo socoto oo maqlay markaas ugu horeysay in walaashi islaamtay iyo ninka kani dabeetana gurigoodii uu yimi nabar uu ku dhuftay kadib waraaq quraan oo ay akhrinayeen uu ka qaaday taaha ma anzalna alayka alquraan litashqa suuradaasi ay ahayd laakiin ma asixin iyaduna qisada Umar laakiin waxa kaaga filanaya sidoo uu adadka islaamnimada uga fogaa marka hore waxaynu soo qaadan doonaa مثلا waxa Abdullah gabadha la yiraahdo iyo ninkeedo kamid ah dadkii xabashida u hijroonayay Umar nin adagna uu ahaa marka qaar kood nin xariis badanna uu ahaa ayaa waxay leedahay anagoo guureyna oo xidhxidhanayno oo rabna inaanu baxno oo ninkaygiina uu ku maqan yahay bay leedahay iga tagay oo uu ku maqan yahay yaani qalab urursigii uu ku maqan yahay anaan xidhxidhayo si baxaya Umar igu soo baxay bay tii markaasuu iskay dul taag isagoo gaalkiisii wuxuu igu yiri bay tiri waana nimankii aanu dhibta kala kulmi jirnay bay leedahay Umarku wuxuu igu yiri bay tiri xaqaad qabanaysaa miya tagaysaa bay tiri innahu lil intilaq yawm Abdullah waxaanu malaynaa inaad safraysaan waa tagistiini miya markaas waxaan ku yiri bay tiri na'am wallahi la nukhrijanna fi ardillah aadaytumuna wa qahartumuna hatta yaj'al Allah makhraja ha wallahi baan ku dhaartay waa ka tagina meeshan ay degantii ilaahay dhulkiisa saan u baxayna na dhibto nafta isugu kaaya keentaa ku yiri bay tiri Umar calaalkii ay gabadhani calaacashay ayuu ka naxay dabeetana wuxuu ku yiri saaxiibakum Allah idin dhawr ayuu dhaw iska kay tagay bay tiri gabadhii waxay ka yara dareentay Umar inuu naxariistay oo kale siibu kaga tagay Amir baa yimi ninkeedii markuu yimi baan u sheegay bay tiri waxaan idhi bay tiri Aba Abdullah yow haddaad arki lahayd Umar maanta sidii u murugooday markuu arkay inagoo safrayno baxayna wuxuu ku yiri atamicti fi islaami nayaha buu ku yiri ma islaamnimada Umar baa ayaa hunguri ka haya يعني sidoo fagaan kan ma ka rajaynayo ma islaamnimada Umar ayaa hunguri ka haya buu ku yiri markaasay ku tidhi ha Umar islaami ma ayibir fala yuslim alladhi ra'ayta hatta yuslima himaru al-khitab ka jeegisa islaami ma ayuu ku yiri ilaa ya dameerka khitaabo islaamo mooyaan يعني ضمير كاسا كهر اسلام يا عمر سيدو فوق yahay waxaanu rabay inuu ka qoosiyo arintani waa qisaska waxa iyagana soo wariya ahlu siyar laakiin waxa meesha muuqata gabadhu inay ka ra'yi toosnayd nabiguna kaleeyhi salaatu wasalaam sida xadiidka sunan tirmidhi ku sugan ee sanadkiisu yaani uu tirmidhi ku tilmaamay xasan sahih aynu yahay waxa uu sheegayaa xadiidku sahih ligeeyri ala kulli xaal culimadu markay isu geeyeen waxa uu sheegayaa xadiidkaasi nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam inuu ilaahay bari jiray inuu ilaahay diinta tan ugu gargaaro Umar ilaahayna ducadii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waa aqbalay dabeetana Umar wuu soo islaamay markuu soo islaamayna runtii wuxuu ka mid noqday arkaantii ugu waaweyned ee dadka muslimiinta ay ku tiirsadaan bale waxay gaadhay markuu soo islaamay in dadku masaajidka ay ku tukadaan iyadoo cidna dhiban ibn Mas'ud ay xadiiska Bukhari ku yaala wakiilaha ma zilna a'izzatan munza aslama Umar buu ma nanka suulin buu inaanu dad sharaf leh oo ciizala noqono sidii Umar uu islaamay mar kale waa ka tilmaamaya xadiis tabaqat ibn Sa'd ku yaala sanad saxiixa ku soo arooray laqad ra'aytuna wama nastati'u an nusalli bil bayt hatta aslama Umar فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي
waxaa la arki jiray buu leeyahy waxaan soo joogay iyadoo aanan awoodin inaanu masaajidka ku tukan karno ilaa iyo uu cumar islaamay buu leeyahy markuu islaamay buu dagaalamay ilaa iyo ay naga tageen oo noo ogolaadeen inaanu ku tukan karno masaajidka mar kale xadiiثu mucjam alkabiirka ku yaala طabrani oo isna isnaadkiisu xasan yahay waa kale ibnu mascuud laftiisii ina islaamuhu kaana nasra buu yidhi diinta soo gelistu soo galay cumar waxay ahayd nasri guul alle uu islaamka siiyey islaam mucjamkaasi cabdillaahi ibnu cabaas waa ka isaguna sheegaya cumar isagoo ka warramaya xadiidkiisna waa xasan sanadkiisu cumar maalintii midida la geliyey uu dhiman doono ee dambe khilaafadiisii markii midida la geliyo ibnu cabaas isi soo dul taagay isagoo leh cumar buu la hadlayo wuxuu ku lahaa falamaa aslamta kana islaamuka cizan waadhara allahu bika alislaam warasuulu llahi waasxaabah warasuula allahi waasxaabah markii aada islaamtay buu leeyahay cumarow wuxuu islaamnimadaadii horena ahayd casiiznimo iyo sharafti oo ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimada iyo rasuulkiisii iyo saxaabadiisiiba uu kugu kor yeelo kugu muujiyey cumar iyo siduu islaamay haddaynu soo qaadano qiso shaahid oo cayaanu soo aroorinayo oo siirada ibnu hishaam iyo ibnu isxaaq ba ay sanad xasana ku soo saaraan ibnu kathiirna uu leeyahay waaba sanadku jayid cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhataab weeyaan inankiisii oo ka warramaya wixii dhacay markaasi uu cumar islaamay oo le waktigaa inan yaroo caqlilo wax kala garanayaan ahaa buu leeyahay waliba waa meelahay ka soo qaataan yacni islaamnimada cumar inay waktiyadan ku beegnayd waxay ka soo qaadaan maadaama cabdillaahi ibnu cumar da wax kala garanaysa uu ahaa ghaswatu bederna raggii loo diiday oo hayo 14 jir ahaa yacni inay waktiyadaa ku beegnayd beder horteed inay ku dhacayso un muddo aan 10 sano ka yar oo waktiyadaa ku beegana waa meelahay isaga geeyaan yacni qisada tani waktigii ay dhacday markay xisaabinayaan culamaai taariikh qisadan xadadkeedu da'daa cabdillaahi yaray ku xisaabtamaan waayo cabdillaahi qisadan wuxuu inoo sheegi doonaa isagoo inan yara oo aabihii daba socday inay waxaan oo dhami dhaceen oo sheekada tan caqliyeynayay waktigii badarna inuu nin loo diidayba inuu uxud in dagaalka galo labada dagaal midda loo diiday midna loo ogolaado dhalinyara inuu ahaa calaa kulli xaal wuxuu leeyahay aabbahay markuu islaamay ayuu wuxuu yidhi ayu qurayshin anqalu lilxadiid quraysh nin maa warkiisu dadka gaadhsiin og ii sheega ninka dadka ugu warkiisu yacni wuxuu rabaa islaamnimadiisa inuu ka sheego iclaamka ugu weyne markaa quraysh dhexdeeda ka jira si dadoo dhamiba uu ogaado warka cumar aanu marnaba u qarsoomin markaasu wuxuu leeyahay quraysh warka yaa u qaadi og waxa la yidhi buu yidhi nin la ydhaha jamiil ibnu macmar aljumaxi ninkaas buu ku kallahay baa la yidhi gurigiisii iyo xaggiisii cabdillaahi ibnu cumar wuxuu leeyahay faqadawtu attabic ahara waandur maa yafcal waan soo dabagalay buu leeyahay aabbahay anigoo bal eegaya waxa uu sameeya buu yidhi anoo inana buu cabdillahi wuxuu leeyahy wa ana ghulaamun acqil kula maa ra'ayt wiil yaroo wuxuu arkaba garan karoo fahmi kara baan ahaa buu leeyahy markii uu ninkii u yimi ayuu wuxuu ku yidhi buu yidhi aclimta ya jamail anii qad aslamtu wadakhaltu fii diini muxamed waryaahe buu ku yidhi ninkii war ma og tahay buu yidhi horta inaan islaamay oo diintii nebi maxamed galay ninkii lagu yidhi quraysh oo dhan isagaa warka u qaadi og ayuu warkiisii u sheegaya cumaro caynkaasu ku yidhi ibnu cumar wuxuu leeyahay wiilkii isagoo hadlaya fawallaahi maa raajacahu xataa qaama yajuru ridaa'ah ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi hadalka kumuu celinin buu yidhi ee ninkii wuu istaagay isagoo maradiisii jiidaya buu yidhi xataa maradii aansaani u qaadan isagoo marada jiidaya ayuu dhaqaaqay buu yidhi cumarna wuu dabagalay buu yidhi anna waan sii dabagalay buu leeyay yarkii xadiidka warinaya markaa saddexdoodii oo isdaba socda ayaa qabtay xaggii masjidka wuxuu istaagay buu yidhi ninkii baabilmasjid markuu marayey ayuu qaylo labada dhagood isqabtay buu yidhi isagoo le yaa macshara quraysh qurayshina markaa andiyadoodii meelihii reer waliba ama oday waliba majliskii uu ku lahaa masaajidka iyo halkii la kala fadhiisan jiray iyagoo fadhiya ayuu labada dhagood isqabtay buu yidhi oo le qurayshay alaa ina cumara qad saba cumar diintiinii wuu ka baxay saba waxay u isticmaalaan qofka diinta ka baxay diin kala gala
يعني وحلي عمر دينتيني وكبحو كأنما وبدعوله نقضي عمر بايستبت أقول بين بوشاقي إيه والله وان إسلامي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صبع ذنب ديدا يا عمرنا يعني إنك دينتو هذا كبح الدين كلا قلوم بس كي استعمال كره سنو حلي أنا الدين كلا جلسي ما شرته إلهي ما كون دارته وان إسلامي يقولي تبى ترى ماشي وكا شهاد وحين ناديه ده فديو ده بصاق عمركه دجال باب الأمي عمرنا ودجال مي دجال كيوح السعودي بو عبد الله بن عمر ليه حتى قامت الشمس على رؤوسهم إلا يعد عده كلولاطي ضدك مضحي يعني عد عد كل البال ليس لجاري سيدي اللي يسد ليه مركي عد عدينا كلولاطي ضدك نكت ربطي أي مركي دنبع عمر دالي يقول لهم كاسوس كفرست إلا هو مقالة داني ينم قرا دجال ميه markii la isku cadceedsaday uu daalay ayuu iska fadhiistay buu yiri way isdul taagan iyagoo ku xoomay oo wali la rabo in la sii dilo oo isaguna leeyahay buu yiri ifcalu ma bada lakum وحلاليا وحيدين مغضانك وحبا هي تورين السماية فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا وحا دونتان يالبو يدهين حنا إلهي بان كل دارتي هدان صدح بقولو ننقادني مكوة الدقنان من أموادي كساري أموادي نقساري إيساد دونتان يالبو كيدي هدان صدح بقولو ننهلو مكا أموادي كساري أموادي نقساري دونتان وحبا هي حنا صاد دونتان يالا iyadoo nabarkii sidii loogu boobayo isna sida leeyahay buu leeyahay wiilkii yaraa daba socday ayaa oday dar qurux badan sitoo xaraboonayo iyadii quraysheed kamida baa soo baxay buu yiri dabeetana wuxuu yiri ma shaanukum war waa maxay waxaan dhacay lagu buuqsan yahay waxay yiraahdeen sabaa umar baa diintii ka baxay bay yiraahdeen war balukaadiye buu ku yiri ninkani haduu naftiisa diin u doortay maxay idinku ka rabtaan buu ku yiri ma waxa doonaysaa reer banu caday ibn kacb وقبيلك كذا شيء والرير هبل والله بانو عمر سيدا يدين كبود دينين هدا عمر دشان رير هبل بيستلي دونتانه ما هو حرفتانو ان الرير هبل دغالنتان بولي يعني عمر وان لا غرانو الرير هبل نينكا انت halka ku dishaan idin ka tagi maayaan ma waxa doonaysan buulay in reer hebel iska shaan hadayna rabin reer banu caday in alla dagaal gashaan iska daaya ninkan hadilinay Abdullah yaro xadiidka warinaya wuxuu yiri fa wallahi lakaannama kanu thawban kushita anhu waxaad moodaysay buu yiri mara saarnayd oo laga rogay inay ahaayeen markuu ninkan inta yiri ba dadkii ku xoosana dib uga istaagay Abdullah ibn Umar xadiidka la Bukhari ku yaala sida uu tilmaamayo ayaa wuxuu leeyahay bari dambe ana abahay waxaan ka ogaaday isagoo markaa de inay yaro waxaan dhacay uu gargaranaya buu ahaa bari dambe abahay wuxuu ii sheegay buu yiri ninkii inuu ahaa al-Aas ibn Wa'il as-Sahmi ninkii la oran jiray Aas ibn Wa'il عمر نكينو شيغنا داهيه العرب به وياه وقضيدي ugu adadkaay abu kamidaha laakiin markanuun ilaahay Umar waa ku bixiyay Aas ibn Wa'il oo ahaa odagii cayn kan yirina marka dambaan ogaaday buu yiri radul ficil kiyama jawaabti ay quraysh ka bixisay islaamnimada Umar jawaab aad u adag bay ilaa iyaba la yiraahdaa waadiga makaba dad u dareeray rabay inay Umar dilaan حديث كلام مسند إمام أحمد كسر سند صحيحي وحاو شيء يعني إني واديكو بالضد إنه النقضاء يجار ربه إن لدله سند كوح الصحيح يبالي إلى شريح ابن عبيد نكال لكن أنت دبوا مرسل ضعيفة على كل وحماشة كم مغانسون سدا حوجن أي سجود ديين أما الله مكي أدر أنتي إسلام لماذا عمر روايات كلا ترى بدن لأنه ملأوجو جبان شريه قرآن كأنه سانو دقيسين شريه وإن إنادير كي قبل داي ولا لين جرجو دينه تقولنا بركض فتيه قوة صار مواقص قصة أرورة أهل السير والمغازي هيسوا أروريان لكن طريق صحيح عن قصة من مدينة وحسسي فوق ما هاي إنه قرآن كم مغلوب رجاسي يعني سند هانو بين لنا ما حدث عنه بنا يوصحين تاريخان إنه دعوة واسك صورة قال وحسي فوق ما هنا إنه عمر حجين كروايو طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إنه دقيسته أو حجين كروايو والسلام والقرآن كري تأثير كأنه قصة ميانا واحفظ معها وحينه تلمامنا عموما وإن نبي عليه الصلاة والسلام والسلام كيف فيني صحابتنا أي لودي بيي أما دبت ربضني أي هيستي أن وقت قاسي لكن عمر إسلامي وحا موقطه عمر نين أدادق إنه سكاها
oo keligii islaamnimadiisa ninkaa Quraysh oo dhan ula badheeray oo ku tukaday Kacbada sida ibn Mas'uud sheegayana inay sababtay markii dambe in la aqbalaba inay ku tukan karaan Kacbada saxaabada tani laakiin haddana waxa muuqata Quraysh inay adkeysan kari weyday inay warkan sii dhageystaan dabeetana waxa bilaabmay go'doomin cusub iyo afkaar cusub iyo qaab cusub waxa bilaabmay ra'yiga gaalada maanta ay dunida ku wadaan mid la mid ah waxaan la yiraahdo cunaqabatayn dhaqaale in wadan ama dad ama bulsho lagu sameeyo ayaa la bilaabay in lagu sameeyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo cidda taageertaba gaal iyo muslim wuxuu doonaba ha ahaadee reer banu haashim oo dhami way taageereen gaalkoodii iyo muslimkoodiiba taasi waxay keensatay markaas in Quraysh oo dhami ay isugu tagto in qabiilka iyo muslimiinta iyo inta raacdo dhan in cunaqabatayn lagu sameeyo إن شاء الله والكاسين قبل أبي الدنيا بريته والله أعلم وبالله توفيق 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 والله أعلم